degdeg diyaaradaha dagaalka ee dowladda Soomaaliya ee soo koreysatay oo maanta heshiiska la helay saraakiil al-shabaab ah oo ku shuuriyay xuduudda Shabeellada Dhexe iyo Galguduud. Daahir Cali Sow oo ahaa sargaal sare oo al-shabaab ah oo duqeyn ciidanka dowladda ay ku fuliyeen soodinta Shabeellada Dhexe iyo Galguduud ku geeriyooday. Hay'adda NISA oo meedkiisa la keenay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Soomaaliya ee soo koreysatay oo maanta heshiiska la helay saraakiil al-shabaab ah. Daahir Cali Sow oo ka mid ah xubnaha xilalka sare ka haya kooxda al-shabaab gaar ahaan heesta awood ay hadal hayaan xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa ciidanka dowladda maanta ay ku dileen soodinta Shabeellada Dhexe iyo Galguduud. Hay'adda NISA oo meedkiisa la keenay dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigi doonta meedka Daahir Cali Sow oo ah sargaal sare oo al-shabaab ah. Wariyaasha ayaa looga wacay goordhow xafiiska hay'adda NISA si ay u soo tabiyaan shir jiraa'id oo afhayeenka dowladda uu qabanayo, kaas oo ku sheegayo in hay'adda NISA uu yaal meedka Daahir Cali Sow oo ka mid ah saraakiisha al-shabaab. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Soomaaliya ee ka soo koreysatay wadamada Carabta ayaa aroortii hore ee Saakay waxay xog ka heleen in soodinta Shabeellada Dhexe iyo Galguduud ay ku soorayaan saraakiisha hogaaminaysa kooxda al-shabaab gaar ahaan labadaasi gobol. Howlgalkan oo ku bilowday diyaaradaha droniska ayaa muuqaal ku duubay goobta ay ku soorayaan iyadoo duuliyihii diyaaradda droniska saraakiisha NISA la soo wadaagay in dad shacab ay meeshan ka dhaweyn. Waxaana ragga ku jira Daahir Cali Sow oo aad loo baadigoobayay. Mahad Salaad agaasimaha hay'adda NISA oo lagu wargeliyay goobta ay ku soorayaan saraakiisha al-shabaab ayaa amar ku bixiyay in duqeyn laga fuliyo. Waxaana xubnihii ku dhintay ka mid ah Daahir Cali Sow halka uu ku dhaawacmay nin magaciisa afgarashada ku sheegay Cabdimudalib, kaas oo dhaawac ahaan loo qabtay. Ninkan oo wax laga weydiiyay waxa ay ka shuurayeen ayaa banaanka keenay shirkan wax u darnay, wuxuuna ku sheegay in shirkan ay ku sugnaayeen saraakiisha al-shabaab gaar ahaan Shabeellada Dhexe iyo Galguduud. Xalayto ayaan taleefanada ku wada xiriirnay saraakiisha qaar ayaa ka yimaaday Galhareeri, Coosweyne, halka intooda badnaa halkan ay hooy u ahayd. Wuxuuna shirkan u darnay inaan iskaga baxno Galguduud iyo Shabeellada Dhexe maadaama dowladdii iyo qabaa'iladii deegaanada xaq u lahay ay diideen kooxda al-shabaab. Wuxuu ninkan hay'adda NISA u gudbiyay kooxda al-shabaab markay ka baxaan Shabeellada Dhexe iyo Galguduud halka u jiheysanayaan. Wuxuuna cadeeyay in saraakiishan ay go'aamiyeen in xubnaha kooxda al-shabaab ee hubka haysta muddo 48 saac iskaga baxaan Shabeellada Dhexe iyo Galguduud una jiheystaan gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan degmada Jamaame.